go-aan kan arinta ka taagan khaliijka wadamada carabta ama islaamka waa ogtiina maanta muslimkii madaxa la isku xiray sectarian war baa lagu soo celiyay sunna iyo shiiciin baa lagu soo celiyay waa aragtaan oo dawladda waaweyn carabta waa la burburiyay hadda waxa la marayaa ku yaryaraay soo saarista shidaalka halkan Iran baa joogtay idan la gudoomiye waddan muslim ah iyaga la isku garaacay waxaas waxa keenay waa hoggaan xumo keentay waa dulmi waa keenay qaran aan ku dhisteen sharci islaama oo muslimna sheeganaya oo dulmi ku dhisan ma raago marka waa la kala baxay oo waqti asaasi ah yeelay waxa weeye inagu dawladdu waxay taageertay xulufada taageertay marka ay ka noqoto oo wadamo isqabsadaan saaxiib tihiin isku diin tihiin waxa la eegayaa macaamil leedihiin yaa kulleedihiin dano badan inagu ogtiina Sacuudiga ilaa boqor Sacuud ka aasaasay dawladda Sacuudiga Arabiya dadkeena wala shaqeynayeen ragla aasaasay mamlakada qadisiyay weyn ku jirnay Aramco shirkadda ugu weyn ee soo saartay shidaalka soo saartay Sacuudiga ragii u horeeyay Soomaaliland bay hay'ad ka shaqeeyay xiriir dheer baan leenahay ilaa 5,000 oo wax jira reer Soomaaliland oo Sacuudiga joogta laakiin kama faa'iideysan khaliijka oo waqtigan qolada Imaaraadka oo dadka maanta inuu badan investmentka iyo base aynu yeelanay way marka dadku saaxiibka ay isqabsadaan in ayirkii de saaxiibka raacaysa Soomaaliya lagu sheegay istiraatiijiyada waxa geena hadaa eegtaan marka diyaaradaha ayaga ay magaranaysaa barnaamijkan sheegay diyaaradaha cirka maraya diyaaradu 195 inagana maran dusheena wajahada dalka Soomaaliya oran jiray istiraatiijiyadu waxa geena way Soomaaliya labada webi moojana wax faa'iido lagu sheegay ama jirto laakiin macdan ahaan istiraatiijiyan dalkeena weeye waa wajahadii waxaana wajigiiba ahaa Soomaaliya ahayn ilkii waxaan ahayn foolashii Soomaaliya markaan isku jirnay baan ahayn iyagu gooskiiba ahayn markuu goosku ka dhacayo markuu ilku sare ka dhacaan waxaad fool xuntay markuu ilku ka dhacaan moogta goosku waa qarsoon yahay iyagu gooski waa qarsoon yahay marka insha Allah taala imaka hawadayna waa xidhnay laakiin awoodan ku xidhna ma leh oo dama haysano waxa naga boqo laakiin dhaqsaan oo helna insha Allah taala in awoodayna aynu gacanta ku harno diyaaradu aanay iska kaysan dul marin أنا سوسود المرن ما قطعت عنكم هم بليان يا دولة موقف عم بيسكت أكتي وحوي either with us or against us بمارسة بريجيس بوش أوكري أي أرجو تاجن تاي وهنا كوليشن أي إنه راعني وسياسة وحركة في عنق ديريا وحكم حمين إن حسبي كله أيسكم موفر نقدين صوماليا دولة صوماليا بنتها إنشرين طلع هايستو هذا اللي هو الدولة ويكو الطيارة سكرها راعية مكا حماي ومركو رئيسه حسب الصومالي أي كم موقف إسلام نقلان صوماليا تاس أدي أربعة حماي قالوا كان وحوي تدكين وضايع تدكين شعب غير صومالي ما قرنايو عدك وكيلة وحوي الدولة دون الشعب قد يلعلسها halkay dhibaato ka jirta ilaalisa waa ogtaa waddankeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxay u baahdaan baasabooro haddana waxay intii heli karaysa haddana waxay u baahdaan dadka buka haddana waxay u baahdaan magaalada inay safraan dadkii lacagta haysa waxay tagaan India iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaalada Ethiopia dadkeena waa lagu dhibaa ولقوه يوم الاتقرية دومركين أو بدين ضد بكوضة وان كلا هذا المال سفير إثيوبيا لكن ولي أبيوس كو الصعدة وحوي الدولة إثيوبيا أي حدودها كمسؤولة فدرال جفرمنت ما كانت كتر وديد
tago jaale waxa baasaboorka ay dukumentkaaga ee dawladda federaalka halkaas ay arrintu ku dhamaataa adduunka dee laakiin waxa weeye kilka shanaad askar yar yar oo la isku dhaxaynay booliisiya oo isku wada reera oo isku jira magaalada saayidka buuxintoodu isku jira maxaa oran kara 5 kilomitir ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya huyumulid gareeya oo waxa say u galaan hadaa aragtaan iga wadaan yahuud u galin falastiiniinta checkpoints-kooda arrintaas waxaan doonaynaa dawladda inay gacan ku qabato waxa la mid ah in Djibouti waxaad ku xidhan yahay ilaa maanta la qarxiyay Djibouti ilaa maanta dadkeena iyo halka waa lagu dhibaa kuwa soo galaya waa lagu dhibaa Soomaaliland dad masaakiin ah oo reer Soomaaliland oo haysta taysari ayaa la leeyahay keen $30 waxay keen soo xaga bixin masaakiin te inaguna uma roonin mana ilaalino dawladii kale markay arkaan dadkaas soo galeysay ayaguna u galiyaan arrimaha waxa uu fiican dawladda inay gacan ku dhigto dadkeeda ilaaliso wasaaradda khaarijiga ilaaliso daaqiligu ilaaliso protest la sameeyo arrinta aad iyo aad baan jeclay dawladda federal government-ka in laga hadlaa Soonaasha wala wada dagaa anaga waa dadkeena waa aragtay Itoobiya way ka yimaadaan khamriga ka yimaada qaadka ka yimaada qotrada ka timaada qurun dhanba ka yimaada jamacad fura baa lagu soo daayay hadday noqoto in qofka accent-kiisa la eego Soomaaliya waa kala accent waa la garanaya dialogue anigu waxaan retaliation bala sameyn doona dadku Soonaasha wala wada dagaa Soomaaliya ma ka dhaxaysa shanta Soomaaliba ku jirta reer aan ku jirin Soomaaliya shanta ma jiro ilaa ka afmadu dagaa ilaa ka ashcad dagaa way ku jiraan Soonaasha وماشي قول شنطة صومال لقيها أنا أمريكا غير قول كو أتمر وكنتو وضفك كلا كو أبيوس كريو واحد أوجانا كريم دودي تو إحنا شيءنا إن أرنت هاسي أكيد عين كرتو إن قبائل كيسدلان لأنه قبيل ما حكومي كرو نو غير حكومي كرو دولدي بريك شعر وقاش تيم محمد سياد بري أي الله أركي غير أنت دياراديس dalka iyo awoodii ku burburiyeen ku caburiyeen wixii ka raacay wadi ogeedeen waxaan leeyahay madaxweynaha kilka shanaad hore waan 2013 waan la kulmay waxaan yiri waa inaad Soomaali isku wada shanta Soomaali waa isku wada dhulka Soomaaliya soonaha shanaad waxa lagu ilaalin karaa midnimo Soomaaliyeed waa dhul balaaran dhul khayr qaba way laakiin qabiil dusha ka fuulo anagu ogolaan mayno waxaan ka xunahay shacabka maatida ee alaabtooda laga daadinayo ee haweenka u badan limaayeen qudrad ka soo gali mayso awoodda aan tusto